بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد سؤاشنا maantu waa زكاة الفطر زكاة الفطر waa أحكام badan tahay laakiin saddex su'aalood oo aad u soo noqnoqday oo bixinteeda ku saabsan ayaan ku soo ururinaynaa kelimadan zakaatul fitriga ma la sii horumarin karaa bisha oon dhammaan lacag ma lagu bixin karaa meel kale ma loo diri karaa saddexdaas su'aalood yaa aada u soo laalaabto u soo noqnoqda waxaa ku lamaan meel kale marka loo dirayo xaggee lagu qiimeynayaa qofka diraya meeshuu joogo mise qofka loo diraya meeshuu joogo saddexdaas su-aaladoo isxambaarsanba waxaan leenahay su-aasha maantu waa su-aasha zakaatulfitriga zakaatulfitriga waajibka ah waxaa la bixiyaa suus u dhigma isku celcelis 2 kili iyo badh qofkiiba muslim ah inay waajibto laba sabab bay leedahay ama laba rukni laba tiir bay leedahay waajibitaankeedu in bisha ramadaan ay ku soo gasho iyo in bisha shawaal iyo ciidul fitrigu kuu soo gasho labadaba adoo muslin ah oo nool qofkii dhammaadka ka hor dhintana laguma laha qofkii dhammaadka ramadaan kadib dhintana dhashana laguma laha qof aan muslin ahaynna laguma laha saas darteed hadday timaada su-aasha ah ma la sii horumarin karaa bisha ramadaan oon dhammaanin waxaan leenahay cala saxiixi nacam waa la hormarin karaa marba bisha ramadaan hadday bilato qiyaasan cala azakaati zakaatulmaalkaynu uga qiyaasanaynaa zakaatulmaalkuna laba tiir buu leeyahay markaad nisaabkii milkeeda ahlulwujuub noqoto day ku waajibaysa aad ka mid noqoto in sanad ka soo wareego iyo xoolahaagu nisaabka inay gaadhaan nisaab inay gaadhaan baa horeysa sida soonka soo gelitaankiisu u horeeya sanad inuu soo wareego dhammaadaa dambaysa sida ramadaan u dhammaaday ciid soo gasha ay u dambayso labadaas bay iyaduna leedahay zakaatulmaalku naska sharcigu wuxuu caddeeyey zakada maalku midka hore sababka hore haddii la helo ood nisaabkii qadar zaka gala aad yeelato in la hormarin karo la bixin karo waana xadiidka cabaas labadabana waa zaka maal oo la bixinayo midna fitradaha laga bixiyo soonka midna xoolaha laga bixiyo ama midna maalka ku waajibto midna dimada iyo qoorta ku waajibto axkaam badan oo zakaatulfitrigaana waxaa looga qiyaasta oo raacdaata zakaatulmaalka saas darteed maadaama middaa naska sharciga abaneeyey qiyaaska saxdaa wuxuu keenayaa in haddii sababka qaybtii hore la helo oo bishii inay soo gashaya una dhigma qadar zaka gala inaad haysato sanadkii bilowday in la bixin karo iyadoon qaybta dambe la gaarin oon bishu dhammaanin sida loo bixin kara zakada iyada oo sanadkii aan soo wareegin saasaan uga jeednaa marka la qiyaasan calaa zakaati ilmaal aan kuu kabe wax diidayana maba jiraba wax nas sharci ah oo kitaab iyo sunno oo diidayana maba jiraba waxaa kaloonan arag wax sugan oo aathaar xataa saxaabo ahoo diidaya keliya waxay soo guuriyeen ficil ah inay maalin laba ka hor bixin jireen taana waxay ahayd duruuftoodaa keenaysa laakiin lama bixin kara ka hor mayna dhihin masalada saxaabadu saasay sameeyeen qaarkoodna oo iyagoo duruuftoodu keenaysayna wixii adilada kale ee sharciga ay ogolaanaysay tusaysay sida qiyaasko daliil sharciga laguma diidi karo daliilka sharcigana hadduu qaacidadiisa wax tusayo yaa ku dhaqmay uma baahna
saas darteed sida saxiixa ah wax daliil sharci oon garanayo oo ka hor imanayana uusan jirin waa in sakadii la hormarin karo. haddii la yidhaahdo haddii la hormarin karo lacag ma lagu bixin karaa, su-aal fara badan ay soo noqnoqoto, laakiin sida raajix iyo saxiixa nacamhaa hadday miskiinka u faa'iida roonta. sakaatulfitriga waxaa loo bixinayaa masaakiinta in la deeqo, baahidoodana ay wax ka tarto, gaar ahaan maalinkaa ciidda ah. masaakiinta qaybo badan oo ka midihii raashin la siiya ma anfacayo, waxba uma tarayo, waa iskaabulo. makhaayado furan ay wax ka cunaan bay helayaan, laakiin raashin meel ay ku karsadaan iyo weelba ma haystaan. marka biطacaami keliya ma noqoto. marba haddii la yidhi miskiinkaa leh, miskiinkana uqnuuhum deeqa la yidhi, in la deeqaaye waya qasadka iyo hadafka sharcigu loo bixinayo miskiinka wax la taro. kii ay cunto u fiican tahayna cuntaday ku gudaysaa, kii ay u fududdahay inuu lacagtii ay u baahidiisa ku dabooshana oy gaajada kaga bi'isana waa lagu siin karaa. waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo mas'alada waa qiyaas, naskuna cuntooyin gaaruu sheegay. weli waxaan leenahay labadaba markaan eegno waa lagu bixin karaayo qiimuhu si guud baabu zakaad qiimo in lagu bixiyana sharcigu waa ogolyahay laba xaaladoodba. si gaara zakaatulfitri qiimo in lagu bixiyana dee saxaabadii axaadiidtan warisay baa samaysay, aan faahfaahiyo. si guud zakada qiimo in lagu bixiya laba goor baa la ogolyahay. markay baahi keento waa lagu bixin karaa, markay zakaduba lacag tahayna waa lagu bixin karaa. haddii qofka zaka ku waajibta, qofka neefkii zakadana uusan haynin, maxaa nabigeenu faray sal slam, neef ka weyn baa laga qaadi, ama laba ari ama lacag baa loo celin, ama mid ka yar baa laga qaadi oo uu ku kabi. haddiibase zaka ku waajibto neefkiina uusan haynin, suuqa inuu ka soo gada ay tahay, lacagtiisiina waa bixin karaa, lacagtiisiina wuu bixin karaa, qofka waa siin karaa. haddayba lacag tahayna lacag baa lagu bixiyaa. mas'alada qiimo in loo guuro maxaa keentay? alxaaja keentay. mar kastoy xaajada iyo baahidu keento in loo guuro, qiimo loo guurana waa loo guuri karaa. mid labaadna zakaatulfitrigii baa la ogolaaday. saxaabada nabiga alai salaam saacan buu jireeyey. markay nooc khaasa yimid oo ka qiimo badan kii hore, nus saac bay ku bixiyeen qayb saxaabada ka mida. waxayna dhaheen tani qiimo ahaan taa suuskeedii waa u dhigantaa, qiimay ku jaangooyeen. markii dhinaca kale la yidhaahdo qiyaaskuna adilada sharcigu ka mid yahay, wax daliiloo diidaya in lagu bixiyana maba jiraba. ama qiyaasku cibaadaadka ma galo, qowlu jamhuuri ahli اlcilmi ma aha. qadaalka tahaaradii iyo salaadii iyo soonkii iyo zakadii iyo xajkiibana masaa'il qiyaas loo dariishanayaa ka wada buuxa. markay mas'aladan timaada inuu qiyaasku active noqdo oo la tafciiliyo waa meelaan meeshiisii ahayn. warka gunaanadkiisu sida aan soo sheegnay faahfaahsan darteed qiimaha waa lagu bixin karaa hadday miskiinka u fiicanta. qaybta saddexaad meel kale ma loo diri karaa? haa, waa loo diri karaa. laba xaala labadaba waa dhib ma laha haddii loo diro. haddiinan meeshan aad joogto miskiinba aadan garanaynin aad siiso, sida meelo badan dad ku nool ka dhacda, miskiin uu yaqaano uu siiyaba ma jiro. ama masaakiinta meesha kala joogta ay mudnaan leeyihiin, iyadoo masaakiin kula joogto, masaakiin meel kala joogto mudnaan leh. waxay mudnaan ku yeelan karaan way ka baahi badan yihiin, waxay mudnaan ku yeelan karaan way ka xigta iyo qaraabiyo raximsan yihiin. hadday mudnaanta leeyihiin waa la siin karaa qiyaasan cala azakaati. zakadii nabiga calayh isalaatu wasalaam dadkuu diri jiree zakada soo ururin jiray, qaarna waa qaybin jireen,
qaarna intay soo qaadaan bay nabiga u keeni jireen sal ly slam labada wejba waa la ogolaa kii meeshiisii ku qaybiyana waa loo ogolaa dad masaakiina siiya kuwa intay zaka soo ururiyaan dad ka soo qaadaan nabiga u keenaan la raaci jiro ibilu sadaqa la dhihi jiray baa jiray saas darteed zakada meeshana waa lagu qaybin karaa meel kalena waa la geyn karaa cid maamushoo kalena waa loo geyn karaa saas darteed sugaashii sakaatulfitriga saddexdeedii qayboodba iyadana maanta intaasaan ku gabagabaynaynaa ilaa su-aasha dambe aan saga iman doonana sidaa iyo nabadgelya wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu